السلام يا قدام حوصلة دلكا سيد الله فبيو تليا عينك بوليسكا قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقا مقدشو حلالي قودة قرانكا سراكيشا كلا حلبانا دا كسوق القرياشا عافلا حل كل الواي marka waxay ku haboon tahay erey kooban waxaana meesha u fadhiyo saraakiisha kaliya la wixii ku haboona inta aan fadhiyo waxa isweydiinayay 1400 sano kadib iyo tirada jirto ayad quraan ay ugu soo dhacday yaan ku tadaburayay marka quraysh markay soo banaan cali salaam ay weydiiyeen su'aal ka hor keeneen sideeba eebe qabriga la fuku burburay la isugu keenaya markii ay su'aal ka keeneen ayaa suurada soo degtay aayadaas marka waxa ku jirta aayad si gaar ah uga hadlayso maanta waxaan ka hadlaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim la uqsimu bi yawmil qiyaamah wa la uqsimu bin nafsil lawwaamah ayahsibu al-insanu an lan najma'a 'idamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana kalimada banana huwa waxa waa faraha fingerska waaye atraafta faraha ayaa looga jeedaa marka waqtiga aan ka joogno aayada marka ay soo degtay kadib adduunyadu waxay fahamtay farahaas in qof iyo qof kale ay isu ekeyn oo xitaa haday is dhaleen ay isu ekeyn oo looga saari karo qofka kale looga sooci karo waxa la fahmay qarnigii 18aad iyo waxaana si rasmi ah loo hirgeliyay bilowgii qarnigii 19aad waliba marka si fiiriso aayada lambarka afraad ay suurada ka tahay lambarka afraad ay suurada ka tahay inta ay far bani'aadamku ugu yaalaan waa 4 meelood gacanta midig gacanta bidix lug midig yani 4 goobood ayaa ay faruhu ku yaalaan lambarka ayaduna waa lambarka afraad waxa ka sii daran kelimada lagu tilmaamay banaanahu waa 5 xaraf waay faruhuna waa 5 waxa ka sii daran aayadan bala qadirina ala an nusawiya banaanahu iyo aayada suuratul anfaal ku jirto iyadana banaan tilmaamayso waa labada meel oo quraanka kelimada banaan ay ku soo aroortay waay mid kasta markaad u fiirsato hadana aayadan bala qadirina xarfaheedu waa 23 xaraf aayada idiyuhi rabbuka ila malaa'ika oo ku jirto iyana suuratul anfaal kelimadaheedu waa 23 DNA ga bani'aadanka marka uu ka dhaxlay dhinaca aabaha iyo dhinaca hooyadana zawjiga ku jiraahay waa 23 tashaabuha ka dhaxeeya waxa arkaysaa marka 1400 sano ka hor quraanku sida uga hadlaayo muhiimada ay noo leedahay farqaadista iyo in anaga maanta ka hadlayno waxaad moodaa in aan ka faa'iideysan thamaraadkayni iyo qudraadkayni in aan ka faa'iideysan taamid waaye mid xigta waxa waaye waxaan filayaa waxa joogdo Xamasare oo ka hadli doona arintaas naga maxkamadaha kaysaska yaalo waxaan halka fari doona halkaas waxaan ka yeeleyno maxaa yeelay dalkan keedkiisa waa yaala CID waa yaala keedkii oo waxaad arkaysaan 60 ilaa hadda wixii dambi galay galalkooda waa yaalaan maxkamadahana saas oo kale waa yaalaan marka waxaan filayaa qodobka 263 ee xeerka ciqaabta jamhuuriyadda in la waafaji doono dhismaha maktabul jinaa'iga looga baahnaa inuu dhiso booliisku xeerar guudna oo ishraafka ku sameey lahaa in waxaan filayaa taas marka inay dhaqaaqi doonto waxaan rajaynayaa marka tan waa muuqaal kale maanta goobjoog ka nahay Soomaaliya hore u socotay tilaaban qaadnay farxad gaar ah noo tahay waan uga mahadcelinaynaa taliyaha booliiska shaqadan halkan laga qabtay aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.